السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال وبولموج ميديا uga barateen halkan inuu ka soo gudbiyo wararka iyo warbixinada ka dhaca dunida kooda ugu xiisaaween waa maalinimo Jimcaha 12 bishii lahaad sanada 2020 waxaan warkeena ku bilaabeynaa iyadoo ay magaalada Taroona ay ku taala xuduudda Tunisia iyo Liibiya ay la wareegeen dawladda la aqoonsan yahay ee GNA-ga toddobaadkii hore ayaa waxa ay magaalada kusoo noqonayaan dadkii deegaanka ahaa ee magaalada deganaa dawladda hoose ee magaaladaasi ayaa waxa ay bilaabeen inay nadiifiyaan amaba ay qashinka ka guraan wadooyinka waaweyn si ay gaadiidka u maraan magaaladan oo ahayd magaalo istiraatiiji ah ayaa General Khalifa oo ah jananka gooni isutaaga ee mucaaradka ku ah amaba diidan dawladda la aqoonsan yahay ee GNA waxa ay ciidamadeedu ka saareen asbuucii ay soo dhaafnay magaaladan iyadoo ay magaaladani muddo ku dagaalamayeen halkaas ayaa waxa la soo sheegayaa in ay ahayd meesha ugu istiraatiijisan goobahaasi oo marar badan ay ku soo noqdeen dagaalo isxiga oo jananka iyo ciidamada dawladdaasi Liibiya uu ku dhaxmareen waxaanu kaloo idin haynaa daawadayaal toddobaadyadii aynu soo dhaafnay mudaaharaadyadii ka socday gudaha dalka Mareykanka goboladiisa kala duwan ayaa waxa soo shacbixaysa in tan iyo intii ay mudaaharadaasi socdeen amaba lagu guda jiray ay booliska dalkaasi Mareykanka isticmaaleen ayaa la yiri qalab loogu talagalay ciidamada militariga waliba qalabkaas oo ahaa qalab aan loo isticmaalin shacab ama gudaha dalka Mareykanka iyadoo la yiri qalabkaas waxa ka mid ahaa baabuurta aan xabadu karin diyaaradaha loo yaqaan droniska iyo qalab sun ah oo dadka loogu talagalay taasoo ay waaxda dambi baarista ee dalkaasi Mareykanka ay cadeeyeen in falalkaas ay dhaceen tan iyo intii ay mudaaharadaas soo socdeen taasoo laga sameeyay dhaheen baaritaan buuxa sababta ay u adeegsadeen booliiska dalkaasi Mareykanka qalabka loogu talagalay in ay ciidamada militariga ee dalkaasi kula dagaalamaan cadawga dibadda dhacdadan ayaa waxa ay soo baxaysaa iyadoo ay qolya waxbaara amaba dabagalka ee dalkaasi Mareykanka ay baareen dhowr kiis oo lagu eedeeyay booliiska oo ah inay intii lagu guda jiray mudaaharaadyadaasi ay u gacan qaadeen dad amaba ay waxyeello soo gaarsiiyeen dad shacaba waxaan kaloo idin haynaa daawadayaal dalka Nepal dad careysan ayaa isugu soo baxay caasimadda dalkaasi iyaga oo diidan waxaan lockdown-ka ay dawladdu ku soo rogtay oo muddada dheer halkaasi saaraa dadkan mudaaharadaya iyo booliiska ayaa isku dhac waxa ay kadib boolisku adeegsadeen biyaha aadka u awoodda weyn ee lagu kala celiyo dadka iyo sunta dadka ka ilmeysiisa booliska iyo shacabka mudaaharadaya ee dalka Nepal caasimadooda ku dhaxmaray ayaa waxa la soo sheegay inay booliska ku xirxireen qaybo ka mid ah dadkii halka ku mudaaharadaya iyadoo la soo sheegay in ay dadkii rayidka halka ka mudaaharadaya ee qaybtood dhaawacay soo gaareen walow afayeenka u hadlay booliiska dalkaasi oo arintaasi beeniyay mudaaharadayaashan ayaa waxa ay isku dayayaan inay jabiyaan sharciga dawladda kaasoo ah in aan guryaha laga soo bixin oo guryaha lagu jiro taasoo wali coronavirus ee dalkaasi Nepal la daalacayaan oo ka mid yahay wadamada adduunka ay u saameeyay waxaan kaloo idin haynaa daawadayaal dalka Qatar waxaa laga tukaday salaadii Jimcaha maalintii ugu horeysay 12 bishan oo maanta Jimcaha ayaa waxa la sheegayaa in masaajidada dalkaasi Qatar lagu tukaday salaada Jimcaha kadib markii uu 3 bilood oo isxiga ay xiraayeen dhammaan masaajidada iyadoo dadka ku tukanay masaajidadan ay isu jirsanayeen masaafo in ka badan 1 mitir qof walibna uu afku u xirnaa waxaan kaloo idin haynaa daawadayaal taaladii caanka ahayd oo lahaa badmareenkii caanka ahaa ee Christopher Columbus oo ahaa nin u dhashay dalka Talyaaniga kaasoo ahaa ninkii ku kala bixiyay adduunka ee socdaalo kala duwan qarnigii 14aad isagoo la soo sheegay inuu ahaa ninkii soo helay jasiirado fara badan iyo dalal fara badan oo dunida ka mid yahay dalka Mareykanka waxaan kaloo idin haynaa daawadayaal dalka Turkiga waxa isaga laga tukaday salaada Jimcihii saddexaad waa toddobaadkii saddexaad oo ay masaajidada dalkaasi Turkiga laga tukanay salaada Jimcaha Turkiga oo shaaciyay bishii hore horaanteedii in uu dhamaanba aanu uga cabsi qabin in waxa la dhaho second wave ama mowjada labaad ee coronavirus inuu dalka Turkiga ku habsado taasoo uu wasiirka caafimaadka dalkaasi iyo madaxweynaha dalkaasi ay si buuxda u sheegeen waxaan kaloo idin haynaa arrin yaab leh oo ka dhacday caasimadda dalkaasi Turkiga magaalada Istanbul ayaa waxa la sheegayaa in carwo weyn oo halkaasi ku taala dadka asnaamta ee la dhigo ee lagu xayeysiyo dharka
in iyagana loo xiray waxa loo yaqaan maaskarada ama shaygan wajiga iyo afka iyo sanka lagu xirto ee loogu talagalay in ay lagu ilaaliyo fiditaanka caabuqa COVID-19 carwadan ayaa gebi ahaanba dadka caaga sanamyada ee yaala ee lagu qurxinayo dharka loo xiro ayaa waxaa dhammaantoodba loo xiray maaskarada af xirashada ah waa Boolmoog Media tan iyo kulanti dambe oo xiiso leh. Wassalaamu calaykum.